kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaali Weyn Production kuna soo dhawaada barnaamijyada qodobada dacaaw ku daawo doontaan hadduu rabiidmo waxa ka mid noqonayo Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka oo isku cadeeyay inuu wax ku ogaa qaraxii Zoobe way ku dhamaadeen boqolaal shacab ah oo aanan waxba galabsan haddaba maxay tahay sababta kiiskan loo baari laayay muxuu Mahad Maxamed Salaad ka yiraahday kulan gaar ah oo yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo waliba xubno ka tirsan la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweynaha xogihii ugu dambeeyay Mahad Maxamed Salaad oo faahfaahin rasmi ah ka bixiyay qaraxaasi sida uu ku soo galay magaalada iyo waliba halka la damacsanaa barnaamijyadan ayaan idinku soo gudbin doonaa xogaha kale oo daawo doontaan waxa ka mid noqonayo cabsi xooggan oo ka jirta magaalada Muqdisho iyo qaraxyo kale oo laga cabsi qabay inay ka dhacaan meel ka mid ah magaalada Muqdisho guud xooggan oo magaalada ka taagan iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo degniin soo saartay haddii waxaan idin soo gudbin doonaa meelaha laga cabsi qabay inay ka dhacaan qaraxyada waaweyn ee la sheegayo inay ka dhici karaan magaalada Muqdisho degniin loo diray dadka shacabka ah ee ku badan hoteelada Muqdisho iyo goobaha sida gaarka ah loo bartilmaameysanayo ayaynu faahfaahin idinka wararkeena kale tan waxa ka mid noqonaya damul jadiid oo bilowday inay weeraraan kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowr shakhsi oo la bartilmaameesaday iyo waxaan idin soo gudbin doonaa qorshe cusub oo la doonayo in lagu bartilmaameesado saaxiibada madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yaa ka mid ah shakhsiyaadka la bartilmaameesanayo barnaamijyadan ayaan idinku soo baahin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Uduwa Yusuf Raage oo heegan geliyay caawa ciidamadii ku sugnaa gobolka Shabeellada Dhexe ayaan idin soo baahin doonaa asaatee daawadayaal intaanu guda gelin dhamaantiinba waxaan idinku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkana like dhadaan sidoo kale tan la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin aan ku bilaabo kadib qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee Hotel Xayaat iyo waliba qaraxii Zoobe ayaa marka ka dambeeyo waxa soo baxayo xogo isku gidaaman kuwaasi oo ka xog waramayo qaabka qaraxyadaasi u dhaceen iyo waliba cid fududeysay in qaraxyadaasi ay ka dhacaan jagboontiyo waaweyn oo ku yaalo bartamaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo waliba in kooxda Al-Shabaab ay ka dagaalanto bartamaha magaalada Muqdisho waraanta toddobaadkan agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya taliyaasha militariga iyo booliiska iyo la taliyaasha dhinaca amniga ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa shir gaar ah ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa la sheegay shirkaasi sida ay ku warameen xubno xogogaal ah in agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo ku xog waramay qaabkii uu dhacay qaraxii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka dhacay Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu sheegay in la ogaa qaraxan ka hor inta uusan gudaha magaalada uusan soo galin isagoo sidoo kale sheegay in maalmo ka hor lagu wargeliyay xubnaha sarsare ee ka howlgala garoonka diyaaradaha Aadan Mahad Salaad ayaa sheegay in bartilmaameedka markii hore uusan ahayn wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya taasi bedelkeedu waxa uu sheegay in bartilmaameedku ahaa garoonka diyaaradaha Aadan goobo kale oo ka mid ah hoteelada waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho ayuu sheegay in bartilmaameedka gaarka uu ahaa asaatee taliyaha sirdoonka Soomaaliya ayaa tilmaamay in qorshaha marka dambe loo bedelay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya marka ay taasi xogtooda ay heleen waxa uu sheegay in ay la wadaageen xubnaha sarsare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya muddo toddobaadana waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sida wasiirka ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda in macluumaadka la wadaagay oo aysan ku howlgalaynin marka la eego 2 toddobaad ka hor xarunta wasaaradda ama maalmihii ugu dambeeyaba ka hor intuusan qarax u dhicin inaysan tagi jirin xarunta wasaaradda waxbarashada balse kooxda ayaa waxa uu sheegay in weerar u muuqday mid ismuujis ah inay ku dhameysay dad shacab ah oo aanan waxba galabsan qaraxa ayuu sheegay Zoobe in uusan qorshihiisu ahayn balse wasaaradda waxbarashada loogu talagalay marka la helo macluumaadka qaraxa marka dambe inay u isticmaaleen inay ku raatirtaan wasaaradda waxbarashada taasi bedelkeedana ay bartilmaameedsadeen goobo ganacsi oo ka agdhawaa wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare kuwaas oo ganacsatadii la diiday inay bixiyaan canshuuraad ay ka rabeen ururka Al-Shabaab sida uu ku dooday taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo ka warbixinaya qaabkii uu dhacay qaraxii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho qaraxan oo ay wali dhowr su'aalood ay ku gidaamay yihiin ayaanan jirin ilaa xilligan sargaal askari iyo waliba taliye qeybeed mid wax laga weydiiyay qaabkii uu dhacay iyo waliba cid fududeysay sida uu ku soo galay gudaha magaalada Muqdisho si kastaba ha noqotee agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan weerar kale oo ay kooxdu qorsheynayso sidoo kale tan xogtiisu ay hayaan hay'adaha dawladda isla markaasina ka dhici kara gudaha magaalada Muqdisho
marka laga soo tago ee xogta agaasimaha hay'adda nabad sugidda uu shaaciyey waxaa jiro xog kale oo soo bixayso kuwaasi oo sheegayo in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay fududeynayeen weerarkan kuwaasi oo ka shaqeynayay xilligaasi wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sida macluumaadku ay ku waramayaan wasaaradda waxbarashada waxaa ka howlgelayay haweeney la sheegay inuu qabo sargaal sare oo al-shabaab ah dhowr jeer oo ay nabad sugiddu baaritaan ay ku samaysay ayaa haddana la soo xiray oo dib loo sii daayey taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaalida NISA ayaa waxa uu kulankaasi uu ka sheegay in xarunta wasaaradda waxbarashadu ay ka howlgalaan xubno shabaab ah kuwaas oo baaritaan ay ku socdaan balse ma uusan carbaabin magacyada iyo shakhsiyaadka ay yihiin si kastaba ha noqotee hadalka agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaalida NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa u muuqdo inuu isku cadeynayo kiiskii weerarka ahaa ee ay boqolaalka shacabka ay ku dhamaadeen kaasi oo ka dhacay isgoyska Soobe looguna magac daray Soobe labo maadaama ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux in ka badan 300 oo ruuxna ay cisbitaalada ugu jiraan qaarna raq iyo ruuxba lagu waayay qaraxaasi shacabka Muqdisho ayaa had iyo goor alle ku dhamaada qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho mana jirto cid si toos ah wax looga weydiiyo guddi loo saaro iyo waliba cid dib u taxliiliso dhibaatada dadka shacabka ah ee Muqdisho haysto balse xildhibaano ayaa mar kala duwan waxa ay sheegeen inay jiraan saraakiil la shaqeysta al-shabaab kuwaasi oo daara ka dhista magaalada Muqdisho lacagaha dadka shacabka lagu xasuuqo waxa ugu dambeeyay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo si cad u sheegay in shacabka Muqdisho markay marayaan jagboontiyada ay la kulmaan markay wataan gawaarida yaryar dhibaatooyin xoogan hasaatee qaraxyadu ay si sahlan ku soo gudbaan su'aashan jawaabta loo helin ayaa waxay tahay yaa waayay cid qaraxyada si fududeyso ee lacagaha malaayiinta dollar ku qaadatay daaraha Muqdisho ka dhisato ee uu ka hadlayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow geeska kaleetana saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee damul jadiid ayaa bilaabay inay weeraraan kooxda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo la warinayo in dhowr shakhsi bartilmaameed uu yahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa si cad dibad u yimaaday dagaalka xoogan ee u dhaxeeya kooxda nabad iyo nolol ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxda damul jadiid ee haatan talada la wareegtay arrintan ayaa waxay banaanka timaaday kadib markii toddobaadkan uu qarax ka badbaaday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir inkastoo qaraxaasi mas'uuliyadiisu ay sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab haddana waxaa loo arkaa inay tahay mid la doonayay in lagu bartilmaameedsado shakhsiyaadka saaxiibka dhow la ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali Yara Cali oo sidaad ku dhageysateen barnaamijyadeedkeenii hore uu arrinka ka hadlay ayaa sheegay in kuwa falalkaasi geysanayo laga argudan doono sidoo kale waxaa jira weeraro kale oo bartilmaameedyo gaar ah weeraradaasi kuwa la magac dhabi karo waxaa ka mid ah weerarkii lagu dilay Allahu raxmade Generaal Farxaan Qaroole oo aanay jirin ilaa xilligan cid wax iska weydiisa kaasina mas'uuliyadiisa al-shabaab ayaa dushuuritay ase yeeshee warar ayaa sheegayo inay jiraan saraakiil haramcada kuwaasi oo loo xiray inay dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo qaabka uu dhacay kiiska Generaal Farxaan Qaroole Allahu raxmade si kastaba ha noqotee dagaalkan oo ah mid dadban iyo mid toos ah mid ku jira xilka qaadis xubnaha xilka haya ee damul jadiid toddobaadkan waxaa shaqada laga eriyay shaqaalaha ku meel gaarka ah kuwaasi oo aan wax gunaha ka qaadan hay'adaha dawladda sababta shaqada laga eriyay ayaana la sheegin iyadoo wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uu warqad soo saaray xubnaha shaqaalaha ku meel gaarka ah uu ka eriyay balse siday ogaatay warbaahinta Soomaaliweyn xubnaha dhammaan shaqada laga eriyay ayaa looga eriyay xiriir la lahaayeen dawladii madaxweyne Farmaajo iyo qaar ku taageeri jiray baraha bulshada inay ahaayeen si kastaba ha noqotee dagaal dadban iyo mid toos ah ayaa la ogaaday inuu ka dhac socdo xafiisyada dawladda dagaalka tooska ah ayaa la sheegay inuu yahay mid la doonayo in la qaarijiyo xubnaha saameynta weyn leh halka dagaalka dadbanna uu yahay mid lagu ciribtirayo oo xilalka lagaga qaadayo xubnaha sarsare ee kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibka la ahaa ee nabad iyo nolol la yiraahdo kuwa xilka qaadistooda la soo jeediyay ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Diido waxaa ka mid ah taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwa Yuusuf Raage iyo waliba xubno kale uu ka mid yahay taliyaha ciidanka lugta Generaal Maxamed Taliil Bixi isku soo wada dub lama oga halka ay xiisadani ku dambeey doonto ugu dambeeytiina wararka ka imaanayo gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegayo in taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwa Yuusuf Raage caawa uu ku hoyanayo deegaan dhaca duleedka deegaanka masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe
dhexe isla markaasna 15 kiiloomitir u jira degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ah saldhigga ugu weyn ee ururka Al-Shabaab. General Duway Yuusuf Raage oo maanta magaalada Muqdisho ka baxay ayaa halkaasi ku sugan isagoo heegan galiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Warar ayaa sheegayo in caawa laga cabsi qabo dagaal xoog leh inuu ka qarxo masaajid Cali Gaduud dowladkiisa iyo dagaalkaasi oo qorshe u yahay in lagu qabto degmada Aadan Yabaal oo laba jiha laga soo weerarayo. Jiha waxaa ka soo weerarayo macbuusleyda beesha Xawaadle halka jihada kalena la doonayo inay ka weeraraan ciidamada militariga Soomaaliya Gorgor Danab oo uu hormuud u yahay taliyaha militariga Soomaaliya. Dhammaantood waxay kaashanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladaha Turkiga iyo Mareykanka. Isku soo wada duub ciidamada caawa heegan ayaa la geliyay kuwa jiida ku sugan waxaana heegan galiyay General Duway Yuusuf Raage. Gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo meeraya barnaamijyada kala socoteen warbaahinta Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe nabad iyo warsan.